dhammaan aadanaha ku nool daafaha caalamka dhammaantood waxay abuuraan ama ay aasaasaan jacayl. balse su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay, jacaylka waxaa loo aasaasayaa dana gaar ah sida inaan ka cararayno kelinimada iyo inay tafiirteenu sii jirto, mise waxaa jira ujeeddo kale oo u aasaasno jacaylka? jacaylka ujeedooyin kala duwan ayaa loo aasaasaa. Ujeedooyinka ugu weyn ayaa waxay yihiin inuu qofku ka cararayo tafiir xumada isaga ku dhici karta, ama inuu ka cararayo kelinimada ay iskaabulnimadu ku hayso, amaba inuu leeyahay dana gaar ah sida inuu keliya dareenkiisa fushto. balse waxaa jiro jacaylka dhaba. haddaba waa ku nuuxiisa intiisa badan jacaylka waqtigan ama jacaylku siduu u badan yahayba waa mid dana ku salaysan. taas ayaana ka dhigta 70% inay guuldareystaan jacayladu badankooda. balse jacaylka dhabta ayaa wuxuu lahayn sal ama ujeeddo gaar ah oo ku salaysan yahay. balse jacaylka dhabta ma raadiyo qurux, mana raadiyo midab, balse jacaylka dhabta kaliya wuxuu raadiyaa qalbi saafi ah. jacaylka qof walba qaab kala duwan inuu u micneeyaa dhici karta, balse runta aan laga leexan karin ayaa waxay tahay inay labada qof isfahmaan. haddaba jacaylka dhabta labada qof ee isku qaba miyay isdagaali karaan? miyay iskhilaafi karaan? xurguf ma dhex mari kartaa? haa, ma jiro qof dhammaystiran. haddiiba aad sana raadinaysid qof dhammaystiran, fadlan iska raalli ahow, sababtoo qof dhammaystiran maba jiro. sidaasoo kalena xiriir dhammaystiran oo bilaa khalkhala, bilaa dagaala maba jiro. balse khalkhalka kadib, dagaalka kadib, isfaham la'aanta kadib, qaabkaad u xallisaan ayaa muhiima. dadka sida dhabta isku jecelna waxay yaqaanaan qaabkay isku xallin lahaayeen, oo intay sor fadhiistaan ayay dhibkooga xalliyaan. haddiiba aad leedihid markeen helo qof lamaana ayaan farxad helaya, waad qaldan tahay, sababtoo ah qof farxsan ayaa farxad kala hela. balse haddiiba aad murugaysan tahay, ma jiro qof kaa farxin kara, keliya adigu faraxsanow, qof kale faraxsanna waad heli doontaa. hadhihin qof daacada ma jiro, sababtoo ah bilaadanku waa sida faraheenna, mada wana sinna. qof wanaagsan iyo qof xunba wuu jiraa, qof wada wanaagsanna ma jiro, qof wada xunna ma jiro. haddaba keliya ha raadinin qof wanaagsan oo dhammaystiran. haddiiba aad raadinayso qof daacada, marka hore bal adigu daacad noqo, markaas unbaad qof daacada heli kartaa. balse adigii oo dad adiguba khiyaano wado, sidee baad ku heli kartaa qof daacada? lagama yaabo. marka hore adigu daacad noqo, wax walbana dhinaca wanaagsan ka fiiri. haddii aad mar walba khalad ka fiirisid, haddii aad mar walba waxyaabaha dhinaca xun ka fiirisid, lagama yaabo inaad marnaba jacaylka aad ugu guulaysatid. ugu dambeyntii iyo gabagabadii, hal eray ama hal weer ayaan rabaa inaan ka dhaho jacaylka dhabta. jacaylka dhabta mar walba wuxuu ka weyn yahay qaladka aad kugu sameeyey lamaanahaagu. mar walba waxaa kaala weyn jacaylka aad u qabto. ومعن أمبو وقرر كل بواسم وقصمري ومعن أمبو وقرر كل بواسم وقصمري